qalas noqo oo qalanjo hel. xafiiska qalas noqo qalanjana hel waa xafiis ku suntan halganka jamaahiirta SSC xafiiskaas oo doonaya inuu mideeyo harti meel walba ay joogaan. Daawadayaal waxaan warbixinteenan maanta ku eegi doonaa xafiis cajiib oo laga furay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa laga daafuray xafiis dad badan ka yaabiyay oo su'aalo badan ka dhasheen kaas oo loogu magac daray qalas noqo oo qalanjo hel. xafiiskan ayaa sida la sheegay lagu dhiirigelinayaa dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaas oo dhalinyarada wiilasha ay ku sugan magaalada Laascaanood ee dagaalka gala ama ka qayb gala loogu guurinayo inaan qalanjo qurxoon. sidoo kale gabdhaha daraawiishta ee qurxoon ayaa iyaguna xafiiskan la soo xiriiri kara ama iska diiwaan gelin kara si ay u helaan wiil qalasa oo ay nolosha ku midoobaan. waxyaabaha cajiibka ee xafiiskan uu furan yahay ama ka shaqeyn doono waxaa ka mid ah dadka uu qaabilayo askarta qalasyada ee ku dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood in la siin doono gabadh daraawiishada haddii ay la soo xiriiraan xafiiskan oo iyagu soo dalbadaan. sida uu sheegay madaxa xafiiskan waxaa ku jira iyaguna dadka qurba joogta ee dagaalka dibadda ka taageera in iyagana la siin doono hablo haddii ay iska diiwaan geliyaan ama ay la soo xiriiraan xafiiskani. waxa weeye qalasyada nala soo xiriiraya ragga saddex bay u qaybsamayaan. waxa weeye qalas dhaawaca oo dagaalka ku dhaawacmay, qalas dagaalka ku jira ama Laascaanood ku sugan, ama qalas dibadda dagaalka ka taageersan oo dibadaha jooga. sidoo kale waxaad samaynaysaan anigu haddaan ahay madaxii xafiiska xagga ragga qalasyada waad ila soo xiriiraysaan welina intaad group aad iska dhigtaan oo intiina isku reeraba aad group samaysaan ayaad groupka anigana igu soo daraysaan. waxa weeye marka halkaas ka wada hadlanaa markaasaan groupka weyn idin gudbinayaa marka la xaqiijiyo. hablaha qalanjooyinka iyagu si khaas ah ila soo xiriirayaan, gabadh kastaba gaar bay ila soo xiriiraysaa. waxa weeye waxaan samaynaynaa group weyn oo xafiisku leeyahay oo WhatsApp oo halkaas oo xilliga dagaalka aynu ka nasanno oo habeenkii aynu ku sheekaysano oo aynu ku nasanno oo waxa weeye aynu ka sameeyno nafis dagaalkii iyo qabacdii iyo wixii oo dhan. daawadayaal sidee ayaad ugu aragtaa xafiiskani?